ayaa igu qola maataan kaasana kuri qola waxaan ahay ma garanayo qola waxaan ahay ma garanayo haba ooyna inoo iska duufa xadee gabadhii la afduuftay ama la xaday waatan dhibaatada jirta waxa weeye aabaheed magaciisa ma garanayso hooyo ma garanayso Soomaali cid ay ka sii tahay ma garanayso laakiin de waxaan dadka u horkeenay bal inaanu iska Ilaahay amarkiisa waa laga yaabaa inay heshee dadkooda bayaan la baafino la baadi doono gabadha qof kasta wada dad wajigeeda garanayso in yar hadee qofku markuu yar yahay meel aan isbedelin ba jirta labada indhood markuu labada jiro iyo markuu saddex jiro iyo markuu lixda jiro labada indhood isku bedelaan saas iska ahaadaan hadaan Ilaahay ka ridin de marka gidigii saaxiibay oo dhawaada aad ma santiin gabadhan magaceedii hore loo bixiyay ma garanayso iyada magaca hadda soo bixisay Nadiira Aliya Nadiira ugu yeedhayna wax Nadiira si dambeeyay moogtay ma jiraan waa Nadiira waa soo dhaweynayna doorta soo dhaweynayna wal marka hore waan dhawahay qiyaasaanta xilligii adigu lagu yiri waad moogtay waad luntay ama waa lagu ka haysta gormay ahayd doonaysa waxa ahay 2000 bay ahayd 2000 ayaa sax hargeysa aan joogo hargeysa ayaan ku noolaa inta ku soo leekaaday dadkii qaxaystay ku soo koriyeen hargeysa lagu geeyay ay ugu soo koriyeen deyntaas ay soo leekisiyeen markii dambana waan spam wayna waa iskaga tagay markaan duwan iska shaqaysnay markii dambana nin bay guursaday ninkiina iyagu buu iga doontay ninkiina de waxay doontay waa ahaatay anaa ku jecel buu waxay tahayba ninkiina soo wada joogno waa spam wayna waa iskaga tagay markii dambe warqadii baa la iga qaaday markii dambana waa iskaga tagay waa iska shaqaysanay inaan teerna haystay inta ma daraysto markaa anaa imka inta yarada riya ku sheegay lagu xaday aniga anu de xantun baan maqlay de wax caadi iyagu bareer ay igu yimaadeen ma jirto ma garatay de gabadha ay soo korsay markasta wuxuu joogaday waa Nairobi ku dhaxmeeraysan isli dhexdeeda mana garanay inay waalanto wallahi waxba kama garan karo gabadha kursi aad sheegayso ma weydiisay moogtay marna intaad la shirtay ma ku tiri hooyaday waxaan rabay ehelkay inaad ii sheegto markii hore markaan yaraada waxaan moojinay waxii ma garanaysaa markaan weynaaday baan dareemayna waxba yahayn jirdilkan iyo hadalkan badan iyo qayladan iyo gumeysigan markaan arkay lagu dili jiray ma garanaysaa lagu dili jiray Sacda Halima Sacda gabadha kursi talada Sacda gabadha kursi ma Sacda markaan dila joogay aan fahmo wayna waa iskaga tagay magaaladan galan waa iska shaqaysanayay iyadoo horta hadal bay ma qari jiro waxa joogaday waa Nairobi dhex joogtay meeraysanaysa hadalka kelmadda oo ku soo kora wax kale ma ran jiro hooyadaadi waa Nairobi dhex meeraysanaysa imikana waan joogtaa hargeysa dhex degeynta de maxay ii sheegay qofta igu kulla markasta igu qaanayo ii hinjabaya maxbuu ii sheegay hadda xitaa la shiro waa maya waxba ii sheegay riya ku xaqiijiyay marka in lagu soo xaday oo Nairobi laga xaday adoo inta leeg qofka ku xaqiijiyay warka ku siiyay waakay waxa ay xaqiijiyay waxa ay xaqiijiyay seedigeed ayaa aniga ii sheegay ma garanaysaa markaan wareystaan ku hurday sidaan seedigeed yada seedigeed walaashay qaba tumaashigeed dumaashigeed ayaan weydiiyay horta markaan weynaaday danikan isku xumaanay dhowr jeer baan Axmed Yuusuf ku duuday gurigiisa markaan ku duuday baan ku hurday wax kale uma haysan ninkani dacladu ugu dilay baan malaynaya in dib jirana ma yihi de maxaa adeer maxaa ii sheeg halkan ka soo galay kan iyo waxaan isku nahay iyo sidaan ku lumay kulay sheekada wada haystaa dadkii waxba isku tihiin markaan soo adeer waxaad ka luntay shajab baadahay waxaan ku Nairobi ka dhaxluntay ma garad hadaad ka luntayna isliisii meesha istil leedo ayaad ka luntay imisadi baad baan ku 2000 ma inta saddex koogto inta san wax koogu sheekada waa saxbaan haduu Ilaahay wax siiyo de waa intii xaga waan tagay hadaan nafta waay waqtiga saamixo waa iska shaqaysanay ilmaha yar baan kursanay guriga intaas ka kareystaan iska shaqaysanay soo masaxani waa soo waxay deelantahay ana haysto ninku ugu deeriyo ninkii ugu sii mooy ma garanaysaa بس إنه كذا سانكو هستي مركز دبوا حنقول كذا قبتين عن دبك يجيب بافيو هبلان صاحبنا الشقايو أي يقول قلم عتام كسانا كوري قلم حنا هم بكرنا يوم قلم حنا هم بكرنا يوم هذا هو يوم هذا هو يوم بس كده دوفا خلاص قلم أنا هم بكرنا يوم مركز يقول محاه هذا هذا hablihii bay inantii geysay inantii markii hablihii geysay ayaan maxaa heeday
ayaan dumarkan dhulbahantee maamadan joogta ilaahay qaaraadsiiya maamada dhulbahantee imika ibaafinisay ayaan u tegay markaan u tegay ayaan ka baaminaysa gabadha dhulbahan yaa gabadha dhulbahanta ibaafinaysa xay ka baafinaysa Sonia inantan iyada lay geem garanaysa iyada marka lay geeyna iyadana inana eedow tahay islaamka dhex degan ayay u soo sheegtay ku tiri inanta baafi xiligaas la waayay sidii baan ku tagay sidii baa igu baafisay sawirkayga baa loo diray sidii baan igu baafiyay maamada Faadma Cabkana qaar Allah siiya masaajidka dhexdeeda la iga baafinayo ayaa warqada loo geeyay sidii bay igu baafisay ogaadeen bay noqdeen xaafadii kuwii loo soo sheegay kuwiina way noqon waayeen dhiig wasiyada wayna markii dambe halkaan yimid markaa dawaka waxaan doonayaa imkana ilaahay dadkayga ay barbariye ilaahay dadkayga ay siiye dadku hadday arkayaan muuqayga dadkayga waa arkayaan dadkaygii la baafiya Faadma Cabkana saanta guriga hadda joogtaa haa guriga imkaan la jooga maamad ay gacan qabatee diyaanad kanaga bixisay diyaarad ay ka soo bixisay ilaa Hargeysa soo waday halkan keentay imkana la noodaan igeelantayda yar ila cid kale lama joogi lahayn imka hadaan iyaga la joogi lahayn صاحب الأدب ما سنتين وقيا هراء لك عيسى سوالي كم هذا وقلبي قاعد كتشري كل يدريم سيلو يشاء كورد سواليد موقتها وحن فاصلنا يا بالمقال كذا نتيفو ويسان ميرفو قرسان إلهي وصلوا ويو إهل كذي ربي غني قاهو بالبريو حركة سوق حرو حركة مرأة سوق حرو إن لبا دون تكنو لبا لصتكنا أبي أروح بدان تهاي عد كسر عد كم غن تهاي cid kastoo cid ka maqan tahay oo gabadh ka maqan tahay oo moogtay meel ku ogeyn oo xiliyada dehlaada ay sheegtay qiyaasta ay ku sinayd ilaa intay ka maqnayd bal inay moogtay nala soo xiriiraan la jeclaan lahayn in idab ilaahay waxaan uga baryaynaa inay ehelkeeda hesho rabbiga qaniga ah farxiimka dadka Soomaaliyeed waxyaabo badan oo markii burburkii dhacay adduunyada ka dhacay oo inagu dhacay oo fara badan waxa laga yaabaa moogtay wiil iyo aabiba maxaadka wada fadhiyaan saqoon gabadhii hooyada meel wada joogaan saqoon waa dhacdo moogtay jirto oo burburkii iyo moogtay qaran burburay iyo moogtay xaaladiisa weeye gabadha yar miskiinta ee hooyada ah ilmaha haysata inaynu bal idab ilaahay la baadi doono ehelkeeda waa wax aad u weyn oo wanaagsan waxaan wareysanayaa oo bal dhowr su'aal weydiinaya hooyada halkan joogta gurigan iskale ee ay la joogto ee soo kaxaysay ee say sheegtay bal hadalka xoogaa ka tartaray oo dareen bay la weysa shucuureede dadba dareemi lahayd hooyada iyo aabaha iyo walaalada iyo ehelkaaga iyo meelaha Soomaaliya ka shaadan aqoon oo xitaa magacaaga aan aqoon ugu bixiyay dareenka ay leedahay shucuurta ay leedahay waa iska fahmi kartaan halkan waxa lagu keenay oo halkan ay u timid reer baa jiray gabadh ay ka maqan tahay oo raadinayay reerkii markaa maamada gurigan iskala ama hooyada gurigan iskala bay yaqaaneen gabadhana adigu tuhun bay ka hayso sheekay ku maqashay hooyaduna waa hooyooyinka moogtay Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ee gudida masaajidkan ku yaala Abu Bakar leeyahay oo masaajidka sigiiska kuwa ku taxalluqay gudida ay kamid tahay idam ilaahay hooyadaas gabadha soo kaxayso halkan keentay markay keentay reerkii gabadhu ka maqlay gabadh ka maqlay ee baadoonka ahaa iyadoo baadoon la isugu geeyay dhiig baa loo kala qaaday dhiig marka loo kala qaadana way noqon weyday gabadh iyagu ay raadinayaan dhiig baa siilan waayay idam ilaahay waxaan rajaynaynaa rabbiga qaniga ah qafuur raxiimka inuu u soo dhaweeyo eelkeeda u soo dhaweeyo idinkuna qayb ka qaadataan saaxiibayaal hooyada dhow su'aal weydiinaya gabadha inta ka badan waxaan filayaa inaan su'aalo badan sii weydiin karin bal hooyada u tagaynaa oo dhow su'aal baan weydiinaynaa gidigii saaxiibayaal aad ma sitay waan ka codsanaya inaad sii gudbisaan muuqaalka soo dhawaada mar kale Faadma Cabkana waa hooyada gurigan iska leeyahay gabadha la joogto weeye sababtana waa in halkan la keeno oo laga soo kaxeeyo Hargeysa iyo meesha ay ku noolay iyada soo bahayd Soomaaliland bay joogtay oo ku kortay magaalada Hargeysa caasimadda ay joogtay hooyada inoo sheegaysa bal sababtii halkan loo keenay iyo dadkii gabadha ka maqnaysay iyagu isku barteen iyo gabadha laftigeeda meesha iska barteen soo dhaw hooyo gabadha dugsiga isku barteen horta bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا بما تحب وترضى gabadhan anigoo maalin masaajidka sigiska jooga ayaa inan ii timid kale waxay tiri gabadhan magacyay ii keentay waxay tiri magacyada dad kale baa inan hadda ka hor ka qaatay Nairobi siiba islii
inantiina hadda waxay joogtaa waqooyi. waxay la ogaaday reerihii waxay dhaheen anagu kuma dhalin, habar waalanoo islii wareegaysaa ku dhashay. adiga markii soomaali kuma kala qarsoomaane gabadhii ay weynaatay oo nin lagu daray oo ninkii xataa xoogaa uu hagardaameeyey oo laga furay, inantaasa waxay tiri ilaa waa inaa gabadhaa baafisa. masaajidkan ka sheegay marka waxay ahayd sanadkii 2021kii October 2 bay ii keentay 2020kii markaan baafiyey masaajidkan ka baafinay. dadkii dhan reeraha soo baxay waxay yidhaahdeen annagaa gabadhaa dhalay oo islaam waayeeloo sariir saaran baa tiri reere qaraaba aan nahay baa gabadhisaa uga maqan tahay. reerihii baan raadinay, waa helay reerihii alxamdulilah. gabadhiina waa keenay oo waxaan ka keenay xagga waqooyi. reerihiina way yimaadeen, gaarisay degan yihiin, waa reere la yaqaano maasha allah. reerihii dhiig baan u kala qaadnay. dhiiggii markaan u kala qaadnay ma noqon. haddee gabadhii iyo gabadheedi waa gabar lamaan, meelaan kusii daaya male. saasaan rabbi dartiis ugu hayaa dadweynaha islaamka iyo soomaalidana waxaan ka codsanaynaa qofku wuxuu ku wanaagsan yahay inuu meel ku tiirsan yahay. qof aan meel ku tiirsanayn walwal iyo walbahaar baahaya. marka maalin walba markii cunada cun laleeya waa lagu qasbaa, ma cuni karo bay leedahay, meel bay ka fakareen. marka ilaahay casa wajalla waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i lxusnaa wa sifaati lculaa, waxaan ku weydiisanaynaa horta ehelkeedii inuu ilaahay u keeno oo ay helaan. anaguna hadda alxamdulilah hadda anay ila joogtaa, intii ilaa dadkeedii ay ka hesho inaan hayo oo aan noolahayna waa jeclahay, ilaahay darti ku hayo. wax kalena ma ogi aniga. reeraha markaa dhiiggii adaa u sabab ahaa markaa idinkaa qarash ka bixiyey in la soo qaado oo halkan la keeno, mise reerihii gabadha doonayay baa qabiil kala qaatay oo waad isku tagteen? may annaga gabadhaas xagga waqooyi joogtay baa maaragtaa wax igala qeyb qaadato ilaa xoogaa lacag boqol, laakiin inta kale ilaa xagga gaalkacayaan keenay. qaraabadayda walaashay baan kasoo dejinay, walaashay baa diyaarad soo saarnay. xamar wiil kaloo aan eedo waa aeroboortka joogaan ku wareejinay. haddana isagaa diyaaradda dhoobley soo saaray. dhoobleyna ciddii baa ugu tagtay oo kasoo kaxaysay oo gaaris keentay. wax kaloo idina soo xidhiidho oo maogtay dad ka maqan yihiin oo gabar ka maqan tahay oo kale maaragtay aan reerka ahayn? dad badan baan aragnay, laakiin dadku qaar baa waxay leeyihiin anaga gabadhayadu intaa waa ka yaray, waa ka weyneyd. wax hadda reerkaasoo rasmiya oo dhiig laga qaaday hadda reerkaasaa jira. reer kale way jiraan islaam waalan oo hadda xamar lagu hayo oo caruurteedii wiila hadda halkaa jooga gabarina iswiidhan jirto. habar la yiri waa habaryarteed baa nala soo xidhiidhay. islaanta waalan bay la dhalatay. islaan macnaha madaxa ka xanuunsanayso joogta xamar? haa, xamar baa la geeyay, halkaana laga qaaday. caruurteedii marka islaantaas markay waalatay wiil 8 jiraa ilmaha ugu weynaa, wiilkiiba mindi iyo la dhacday oo dili jirtay. waa laga qaaday ilmaheedii, wax qaatay baa taqaan waa qof waalan. reerahaasa waxay igu yidhaahdeen annagaa gabadhi naga maqanta. reerihii hadda waa reere la yaqaan. gabar baa sigiska joogto gabdhaha madarisooyinka dhigta kamida, welina wax isoo taray ma ana arag. maadaama anigu tii hore dee kharashkeedii aan bixiyey beena la caaye xoogaa waa u gabado. waxaan ii reerahan maadaama qaar iswiidhan jiro oo habaryar iyo walaal iyo wax la sheegayo, haddii xanuun ku hayo qof ka maqan yahay oo qof ka maqan yahay waa inay bixiyaan dhiiggii. marka dhiigga baaritaankiisu lagu ogaanayo lacag badan baa? 35,000 40,000 bay isku noqoneen macal gaariga. $400. saaxiib aad baad mahadsantihiin. ilaahay waxaan ka baryaynaa inay moogtahay gabadha miskiinta ah dadkii ehelka ahaa ee ka farcantay, Soomaali bay ka farcantay meeshay ugu aroorisay iyo dadka ka maqan inay hesho. idinkuna aad baad mahadsantihiin sad muuqaalka daawanayseen. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبتقليو.